بسم الله الرحمن الرحيم أخيارت قيمها بدل ميلك استوات جوجتان مقعي وحسن مولد محمد وحين ما تسوق قادن دونا تاريخ ذا يوح قبضك مشارح سمسم محمد عيقي أو كشرحان قبل كساحل مشارحة قولها وكيل ذا قبل كساحل سمسم محمد عيقي كان شرحان حسبي كلمية رقعدا كسوهانا قاضي السياسة دا خبرات بدن نقول له سياسة دا ودنك وانا مشارحة وقعد قبل كساحل dhinaca haweenka iyo guud ahaan Soomaaliland Samsam Maxamed Cige ayaa caan ku ah garab istaaga haweenka iyo dhalinyarada iyo dadka jilicsan waana xildhibaan shacabkeeda la dareen ah waana hiilka haweenka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo himilada hooyooyinka Soomaaliland way hormuud u tahay marwa Samsam Maxamed Cige waxa ay ka hadashay taariikhda waxbarashadeeda iyo halka ay ku soo barbaartay halkan waxaan walaalo ku dhashay magaalada Hargeysa ee aan imka joogo ayaan ku dhashay waxaan ku barbaaray iyada waxaan wax ku bartay iyada waxaan ku bartay iskuulka biyo dhacay iskuul baan ahaa imka group biyo dhacay kamid ahay ka baxay waxaan ahaa dugsi gacan libaax secondary Hargeysa ayaan ku barbaaray runtii oo aan imkana jooga alxamdulillah waxaan hay hooyo 3 caruur haysata oo dalkeedii joogta haddaynu ka nimaadno waxbarashadaadii iyo meeshaad ku dhalateed ku barbaartay Samsamay waxaad noo waxa ay sidoo kale Samsam Maxamed Cige ka hadashay xilalka kala duwan ay soo qabatay Jamhuuriyadda Soomaaliland laga soo bilaabo xisbul xaakimkii udub ee dawladii Riyaale iyo xisbul xaakimka imaka ee kulmiye iyo sidoo kale ururka haweenweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee loo soo gaabiyo naw oo ay ka tahay afayeen imika wallahi munay anigu timekayga horta siyaasad baan ku soo jiray shaqo caadi ma qaban laakiin waxaan ahaa siyaasiyad waxaan isleeyahay siyaasadda meel dumar ka gaaro maad yaraysan runtii waxaan ahaa gudidii fulinta xisbigii udub ee asaasaha dalka ka ahaa waxaan ahaa golihiisa dhexe waxaan ahaa gudida fulinta waxaan ahaa gudida joogtada ah ee gudida fulinta waxaan ahaa gudoomiye ku-xigeenka afhayeenka xisbigaasi oo aan markaas gudoomiye noo ahaa Xuseen Cali Xirsaale raxme uu dhintay ana gudoomiye ku-xigeenkiisii aan ahaa markii dambana Cali Gurey oo ahaa gudoomiye ana aan gudoomiye ku-xigeenkiisa ahaa xisbiga waxaan ahaayay kale boorkii marka ururkii naaw marka kaltuun xaaji daahirna ahayd markii dambana aynu hogaaminaysay gudoomiye guudka ahayd Huda Barkhad ayaan boorkiisa ahayn marka taariikhdan siyaasad ku leeyahay wata imiko aynu joogno waxaan ahay garabka haweenka xisbiga kulmiye waxaan ahay afayeenka xisbiga naaw afayeenka ururka naaw ururkana waxa weeyaan ururka ugu sareeya haweenka Soomaaliland heer qaran marka halka uu sareysa dumar marka waxaan ahay afayeenkaas ayaan ahay gudoomiyana waxaan noo ah Xaliime Xaaji Cabdi inta markaan kaga nimaadno Samsam Maxamed Cige haddaba waxa ay kaga duwan tahay musharaxiinta kale Jamhuuriyadda Soomaaliland waa musharaxa kaliya ee ugu habboon haweenka Jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana u doodi kara haweenka iyo dhalinyarta waana run ahaantii shakhsi furfuran daacad ah jecel bulshadeeda mar walbana ku hawlan arrimaha samafalka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo caawinta kuwa u baahan caawinta haddaba Samsam Maxamed Cige waxa ay nooga baahan tahay garab istaaga bulshada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo gaar ahaan gobolka Saaxil inaynu u istaagno isla markaana codkeena ugu deeqno si aynu ugu hiilino himilada dhalinyarada iyo haweenka Jamhuuriyadda Soomaaliland maadaama ay dadka Soomaaliland u badan yihiin haweenku Jamhuuriyadda Soomaaliland yihiin iyo hooyooyinku kuwa lafdhabarta ina koriyay ina dhalay isla markaana ina dhaqa
inoola dhaxay. Haddaba Samsam Maxamed Cige waa inayn u codaynaa. waxa ay ka sharaxan tahay xusbul xaakimka kulmiye, astaanteeduna waxa weeye kaare. marka ha moogaanin 31 May Samsam Maxamed Cige si aad ugu helisid codkaaga. hadhowno halno musharax daacada isla markaana taya leh inaga turjumi kara codkeena, isla markaana aanan ku qasaarin halkaad hadhow ka qoomamlayn lahayd haddii aad dooratid musharax aan ku habboonayn farta dhexdana ka qaniini lahayd. البولا هرو مركين يقوي ظروف تخفكي كداويسة تمقتي سمسمبا دير لحيسو غيرت تاكل دارين تاي مسكين ظروف تخفكي كداويسة تمقتي سمسمبا تسعن سبسكرايب inaad noo saartaa muhiim ayay noo tahay. waxaanay nagu dhiirigelinaysaa inaynu soo diyaarino barnaamijyo xul ah oo xiiso leh isla markaana bulshada u taraya. sidoo kale like iyo share waxay nagu dhiirigelinaysaa inaynu soo badino barnaamijyada ku soo